iyadoo guud ahaanba degmooyinka gobolka Gado oo gacanta ku haya maamul goboleedka Jubbaland isla markaasina ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwa maamul goboleedka Jubbaland iyo waliba ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM isla markaasina degmooyinka gobolkaasi Gado ay in badan kala xirnaayeen kaasoo ururka al-shabaab ay carqalad u geysan jireen dadka isaga kala goosha degmooyinka gobolka Gado ayaa mas'uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland ee gobolka Gado waxay ku dhawaaqeen howlgal ka dhan ah ururka al-shabaab waxaana maalmihii ugu dambeysay gobolkaasi ka soconaya howlgal lagu la dagaalamayo ururka al-shabaab isla markaasina la isugu furayo wadooyinka gobolkaasi haddaba si aan xog dheeraad ah uga helno howlgalka ka soconaya gobolka Gado ayaa waxaan arrimahaasi ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado Sheekh Maxamed Xuseen Isaaq oo ku magac dheer Alqaadi kuna sugan magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana uu iga warbixiyay degmooyinka oo xilligan howlgalka ka soconayo iyo waliba ujeedooyinka ka dambeysay in xilligan howlgallo ka bilowdo degmooyinka tirsan gobolka Gado ee maamul goboleedka Jubbaland waxaana inaan ka hadlo hadii Ilaahay idmo howlgallada ka bilowday qayb ka mid ah gobolka Gado oo aad ka warqabteen in mudooyinkii ugu dambeeyay lagu baaqayo in howlgallo degdeg ah la bilaabi doono madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaan howlgalladaas oo dhammaan guud ahaan gobolada Jubbaland lagu nadiifinayo oo looga saarayo cadawga argagixisada al-shabaab maalmihii ugu dambeeyay waxa ay ka bilowdeen howlgalladaas gobolka Gado qayb ka mid ah sida Buurdhuuba eeriyadeeda ayuu ka bilowday howlgalka ugu weyn howlgalladaas oo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada dawlad goboleedka Jubbaland qaybahooda kala duwan iyo ciidamada nabad ilaalinta ee Soomaaliya ka howlgalayo gaar ahaan Ethiopia howlgalladaas shalay iyo maalmahanba qayb ka mid ah gobolka waa ay socdeen wax khasaaro ilaa haddadan ciidamada soo gaarayna ma ay jiraan markii laga reebo deegaanka Buurdhuuba meel u dhow markii ciidamada howlgallada ay ka sameynayeen miinooyinkii ay aasayeen cadawga argixisada ah ayaa waxaa wax ku noqday dad Soomaaliyeed oo shacab ah oo aan waxba galabsan oo wadada marayay ayay waxay la kacday miinadii kareeto waxaana ku geeriyootay gabar oo maartay kareetadaas wax ka waday Ilaahay ha u naxariisto eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyootay Soomaaliya Allah ka siiyo wax khasaare intaas ayaanu hadda ognahay ciidamadiina insha Allah ta'ala hadda howlgalladii way sii wadi doonaan howlgallada maalmahan si toos ah uga socon doono eeriyada Garbaharey iyo Buurdhuuba oo dhan ba insha Allah ta'ala ay ka socon doonaan iyo waliba dhanka Baardheero iyadana ciidamada howlgalladaas ay ka wadaan ilaa maalmahan waxay ka socon doontaa area jungle iyo ilaa Tarako iyo maaragtay Alaxereed iyo maaragtay Daar howlahaas baan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inay sii socon doonaan ilaa haddana ciidamadii howlgalladaas sameeyay wax khasaaro oo hadda soo gaaray ma jiraan cadow argixisada ah waxaan leenahay waqti aad u fara badan baad ummadda Soomaaliyeed dhibaato fara badan soo gaarsiiseen dhammaan guud ahaan gobolka Gado waxaan rajaynayaa muddo dhow inaysan ku noolaan doonin cadow argixisada al-shabaab ummadda Soomaaliyeed waxaan fariin aan rabaa inaan u diro waxaad tihiin dad wadaniin ah waxaad tihiin dad 25 sano 27 sano fawdi iyo dhibaato iyo dawlad la'aan ku soo jiray in aad garab istaagtaan ciidamada walaalaha aan nahay ee AMISOM oo howlgalka socda qayb ka ah iyo ciidamada Soomaaliyeed ee xoogga dalka iyo kuwa dawlad goboleedyada qaybahooda kala duwan in aad garab istaagtaan nabadda la doonayo in
dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gado la doonay in laga maaragtay hergeliyo sidii ay u xasili lahayd nabad aad u heli lahaydeen cadawga looga adkaan lahaa argagixisada khawaarijta dalka Soomaaliya ku soo duuleyn loo baabi'in lahaa idinkuna aad u heli lahaydeen nabad iyo ku ganacsataan meesha doontaan aad maaragtay ku mari kartaan naftiina iyo maalkiina iyo diintiina ay ku badbaadi karto inaad maaragtay garab istaagtaan howlgalka socdo insha Allah ta'ala annaguna waxaan u diyaar garownay oo aan sii wadi doonaa guud ahaan dawlad goboleedka Jubbaland inta ay xukumaan gaar ahaan gobolka Gado oo hadda aan rajaynayo meelaha ugu wanaagsan cadawga looga adkaaday yahay inaan insha Allah ta'ala cadawga argagixisada aan ka saarno si kastaba ha ahaatee madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa horey ugu baaqay in bisha 7aad ee sanadkan uu howlgal ka bilaaban doono guud ahaan deegaanada Jubbaland kaas oo dib loogu soo celinayo gobolada iyo degmooyinka ka maqan maamul goboleedka Jubbaland Maxamed Qaasim Cali Waxar TV caalamiga Star magaalada Kismaayo.